kala dooro inay gabdhahaagu wada dhintaan ama ay mid noolaato. Waxaa hadalkaas lagaga nixiyey aabbaha carruurtan dhalay mataanaha Ibraahima waa Senegaalees kana soo jeeda waddanka Senegal. Hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Ingiriiska magaalada Cardiff. Aabbaha dhalay carruurtan ayaa hadiya habeen waxa uu ka warwaraa hadalkaas oo ah go'aan aad u adag sida loo qaadan lahaa. Aabbaha waxaa haatan uu la warwarsan yahay halkii uu go'aan ka dhigi lahaa. Ibraahima waxaa hortaala inuu labadiisa hablood wada dhintaan oo uu dooqa u daayo dhakhaatiirta kolba halkii ay mariyaan, iyo in uu go'aan gaadho oo labada carruur mid ahaan loo badbaadiyo. Haddaba labadan carruur mataanaha hadda da'doodu tahay 2 sano ayaa dhakhaatiirta Ingiriisku waxay ku sheegeen inuu yahay xaaladda ay ku sugan mid naadir dhif ah oo ay badanaa dhacdo in carruur caynkan oo kale dunida la arko sanadkiiba mar. Haddaba Ibraahima oo aabbaha carruurta dhalay ayaan weli go'aan gaadhin. Hadiya habeenna waxaa laga warsugayaa go'aan degdeg ah, iyagoo maalinta ka sii dambaysa awlaadiisu ay sii korayso. Labadan carruur ayaa 2 mataan ah, waxaana iskaga dhigsan yihiin dhinac. Ilaahay isaga waxna dilo waxna nooleeyo. Waxaan insha Allah ugu ducaynaynaa Ibraahim oo ah nin Senegaalees ah oo Muslim ah inuu Ilaahay awlaadiisa u dhib yareeyo xanuunka haya. insha Allah waxaan u rajaynaynaa inay nagula sii noolaadaan dunidan intii Ilaahay u qoray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Fadlan haddii uu ku qanciyey barnaamijyadaanu soo gelino bartaan ku leenahay YouTube-ta, fadlan subscribe saar.